بسم الله الرحمن الرحيم. أنا علي محمد جيدي رئيس الوزراء هوري الصومالية. أنا هجامية حزب ودنيا الصوماليات أفكار إنجليزية لوجودها الصومالي باتريوتيك بارتي أما أفكار عربية لوجودها الحزب الوطني الصومالي. وحن سلامة يا مركب رئيسة والشدة الصوماليات مال كسر كجوك الدنيا. سلام كدب أنا رأينا هاد بليو soomaalidii faraha badneed ee gabdhaha iyo wiilasha lahay ee xalay aad iyo aad u taageeray markay arkeen xisbiga baraha bulshada sida uu ku leeyahay noo hambaliyeeyay ku soo biiray xisbiga soo dalbaday intaas kadib xisbiga wadaniga Soomaaliyeed oo qaab dhismeedkiisii iyo shuruudihiisii sharciga ahayd dhameystirmeen waxaa la furay xaruntiisii dhexe oo laga furay magaalada Muqdisho degmada Boondheer xaafadda Xawataako ee agagaarka tiyaatarka qaranka. xarunta xisbiga waxaa ku sugan shaqaale carbisan oo loo diyaariyay inay soo dhaweeyaan xubnaha xisbiga iyo taageerayaasha Soomaaliyeed ee doonaya inay ku biiraan lana shaqeeyaan xisbiga wadaniga Soomaaliyeed. xisbigu wuxuu ka hirgalay gobolada dalka Soomaaliya iyo jaaliyadaha Soomaaliyeed ee dibadda ku noolba waxaana rajeynayaa inay sii kordhaan oo ayna taageeraan xisbiga ku soo biiraan. xisbigu howlgalladiisa faraha badan iyo ujeedooyinkiisa siyaasadeed ee mabaadi'diisa iyo dastuurkiisa ku cad waxaa ugu horeeya xisbigu inuu ilaalinayo diinta islaamka, midnimada Soomaaliyeed iyo wadajirkeeda, inuu ilaalinayo dadka Soomaaliyeed baahiyaha kala duwan ay qabaan, inuu dhaqaalaha Soomaaliyeed kordhinayo haddii uu ku guuleysto xukunka oo khayraadka dalka ceegaaga ummadeenu ka baahan tahay loo soo saaro. intaasuna waxay u baahan tahay nabadgelyo iyo amni la doonaya in ummadda Soomaaliyeed ay ku raaxaysato lana wadaagto bulshada adduunka ku nool oo asaageeda. xisbiga waxaan doonaynaa idinka codsanaynaa Soomaalida meel kastoo joogto inaad ku soo biirtaan, nagalana xiriirtaan, taladiinana nagu siisaan, siyaasadeenna iyo afkaarteenna iyo aragtiyadeena kala xiriirtaan baraha bulshada ama social media oo diyaar idiin ah in laydinkala shaqeeyo haddii alla idmo. kulligiin waa idin salaamayaa. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waana mahadsantihiin.